madaxda ugu sareysa ee dalka ayaa waxay ka qayb galeen munaasabad loogu dabaaldegayay maalinta ciidanka asluubta Soomaaliyeed sida warbixinta warkaasi magaalada Muqdisho inooga soo dirtay wariyahayaga Sayna Maxamed Aadan 48 sano guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa munaasabad weyn oo lagu dabaaldegayo maalintaasi waxaa lagu qabtay xarunta taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed munaasabada waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka wasiiro saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan sidoo kale munaasabada waxaa ku sugnaa kooxaha baambeyda iyo onkod ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed ugu horeyn ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa salaan loo saaray iyadoona ay ciidanka halkaasi ku soo bandhigayeen dhoolatusyo waxa ayna kooxda baambeyda garaacayeen inta ay ciidamada wadeen gaardiga astaamaha kala duwan ee uu qaran ku leeyahay ugu horeyn caruurta lagu soo abaabiyay xirada ciidanka asluubta ayaa halkaasi ka qaaday heeso lagu amaanayay ciidanka halka kooxda asluubta ee fanaaniinta onkod ay qaadayeen heeso ammaan iyo dhiirigelin isugu jiray taliyaha cusub ee aan wali xilka la wareegin sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac ayaa sheegay in ay maanta ahayn xil wareejinta balse uu u yimid munaasabada in uu hambaliyo u diro ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo maanta asaga marti loo wada noqdo aniguna maanta martidiisa aan ka mid noqdo berina uu nasto oo wali taliyanimo ku nasto sabtidan uu taliyanimo ku shaqeeyo axadana iska keeno midda kale waxa weeye ani asaga waa la isku kaaya dhiibayo hadda waa isku wareeraynaaba Bashiir Xashad marka hadda wuxuu degan yahay ciidanka asluubta xarunta wuxuu degan yahay oo xabsiga dhexe inaan guri kale u raadiyo waay haddii kale gurigu ka soo toosa dhowr bilood ka bacdi culaya way karaan intaas oo salaan iyo muxuu ahaa kaftan haddaan sheego aniga maanta khudbad akhrin mayo muxuu ahaa aragtidayda iyo visionka aan rabo muxuu ahaa termka labaad ama muxuu ahaa muddada labaad ee xilkan la ii magacaabay waxaan ka sheegi doonaa insha Allah ta'ala xafladda xil wareejinta waxaan kaliyo hadda leeyahay waxaan u hambaleynayaa taliyaha sareegaas Xuseen Xasan Cusmaan anigoo hadda waxba amaantiisa ku dheeraan maayo meesha xafladda ka sheegi doonaa ilbaana macalina meeshaan ayadoo tarniigahan ka tagay maanteena waa u jeednaa sida ay tahay marka qofka aan waxa walaalkiis kaga horeeyay meesha uu qabtay aan qirina dadba maahan dadnimadiisa xun qofkaas oo kale wax badan baa qarsoomay intaan maasaal dhanka kale taliyihii hore ee ciidanka asluubta sareeye gaas Xuseen Xasan Cismaan ayaa dhankiisa waxa uu hambaliyo u jeediyay ciidanka asluubta meel walba ay joogaan isagoona u mahadceliyay ciidankii kala duwanaa ee shaqada munaasabad waxaan farxadda iga badatay waxaan guriga aad ku shiraysan ma lahayn markii ma aragtay muxuu meesha aan bilaabayay marka hadaan wax qalbahay la yaabina farxadda iga badatay runtii waxaan kalsooni dhaaftay marka dhammaan asluubto dhan waxaan gacan weyn ku yeelatay meeshan generaal ha ahaada ilaa dable runtii hada la shukran ala waajib waa xaqay u lahay inay ka shaqeeyaan waana ka shaqeeyaan nin maanta oo khaas u amala ani inkastoo hogaaminay laakiin dhammaan ciidanka dhanba askale libtaan ciidanka keenay ma keenin oo ciidanka asluubta ayaa mahad askale marka wax yar idinka taabto ciidanka asluubta marka wax yar idinka taabto waxay leeyihiin isbiirta gaar ciidanka ay kaga daweeyeen waxa hal qabta hadii la yiraahdo waxa weeye ninkaas kii hadda admoodays inay oo qaloocan yahay hadii wax oo ciidanka dan oo hadii la sheego markii waxa weeye u diyaar garoobay runtii waxa weeye mahadaas ilaa askale ciidanka asluubta askale wali waxaan
rabaa ciidanka asluubta nin maadaama ani meeshaan ka tegaya waxaan rabaa ninkii aan xumeeyin inuu isku ka cafiyo ninka maaragtay muxuu ahaa kalena ana kulligood dhammaantood inaan cafiyo ninkii wax ii dhimaayo isku daayayna inaan cafiyo kii maaragtay muxuu ahaa oo ani oo wax iga filinayo inuu isku ka cafiyaan rabaa marka koowaad tan kale asluub soo dhawow maxaa la yidhaahdaa sida hadda bashiir sheegay taqaantiris ma aha diyaar waxaan u nahay hadda saacadaan inaan tiriyo ciidanka ayaan diyaar u ahay laakiin tan kale waa waxaan isaga naga dhexeeya saaxiibtinimo ah taas waay runtii waa ku faraxsanahay beddelkan waxa weeye ahaan beddel oo maaragtay muxuu ahaa oo dowladda xaggeeda ka imaaday wuxuu jecel yahay inuu iska fariisto oo misna الحمد لله دولة إذا مركب مشاغن وحوي واي أضلاتي مركب وحويان ماذا حدث لو إيدي مايو صاحب كي نسيف فرح بدل شرف لا ينوسو دوينا يا ماشان هدي الإذن بلنتين عدوى لكن أنا هذا سعدا زيارة مركب سوني واي أحدنا وحلو يركب سوني واي cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay in ciidanka asluubta ay wadaan hawlo wanaagsan oo qayb ka ah cadaaladda iyo qaybtii kale oo ahayd sharci dejinta kulli waana la joogaan marka dawladda maanta meesh way ku dhan tahay marka waxaa loo baahan yahay marka sidaan hadda meesha isu camarnay maanta oo kala in la soo shaqeeyo shaqada waa naga dhaxaysa wasaarad kasta ay taabani xafiis kale taabani waxa la rabaa wada shaqeyn fiican inayna dhaxmarto sida hadda maanta ba meesha marxaata aan u nahay taliyaha hadda xilka banaynayo run ahaantii si fiican baan u shaqaynay muddadii aan joognay waxaa markhaati madoon ah taliska naftiis 3 jeer baan imaaday isagoo burbursan isagoo markaa dhismihii ku bilaawanayo isagoo la dhisahayo isagoo ma aragtay qalabkii iyo dareeshadii la gelinayo ilaa maanta waxay ugu noqotay iraadi ilaahay baaba meesha iska aheeday way dhacday ma ogi mucjizo in hadda taliskan hadda sidaan waqtiga u diyaarsan yahay anoo og duruufihii ku shaqaynayay markaas taliyaha iyo intii la shaqaynaysay waa sida uu sheegay waa ilaahay mahadiis waxa ilaahay ma aragtay ku waafajinin mihir galayaan waxaa kale oo muhiim ah meeshan inaan ka sheego taliska gadaashiis masaajida ku yaala masaajidkaas maalintii la dhagax dhigayay waan weydiiyay taliya masaajidkan muddada uu ku dhismaya ilaahay idinkiis waqti dhawaan dhisaynaa buu dhahay saak waan soo dulmaray waqti hore gabagabadii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa hambalyo u jeediyay dhammaan ciidanka asluubta qaybahooda kala duwan waxa uuna u mahadceliyay taliyihii hore ee ciidanka asluubta isaguna soo dhaweeyay taliyaha cusub ciidan ka shaqeeya arrimaha xabsiyada iyo maxaabiista kaliya ciidanka asluubtu sida aan sheegay waa tiirarka ay ku taagan tahay dawladnimada mid ka mid ah waxay ka shaqeeyaan maxaabiista ka sokow inay daryeelaan maxaabiista ka sokow waxay ka shaqeeyaan dhaqan celis macnaheedu waxay tahay qofkii khaldamay oo bulshada khalad ka galay oo la soo xiray oo iyagu mas'uul ka noqdaan markii la xukumo kadib waxay ka shaqeeyaan inay u abuuraan fursad cusub waxay ka shaqeeyaan inay dhaqan celiyaan inay siiyaan waxbarasho inay u furaan tababaro inay qofkaas fursad cusub u abuuraan
oo marka dambe oo bulshada dib loogu soo daayo dib qofkaasi oo ugu soo laabto isagoo dalkiisa iyo dadkiisa wax tari kara oo aan dambiil ahayn. ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxa uu kaloo ka qayb qaataa horumarinta iyo wax soo saarka dalka. sidaad la socotaan waxay lahaan jireen dalagyo waaweyn iyo beero, waxay lahaan jireen dugsiyo waaweyn oo farsamo oo dadka wax lagu baro, waxay lahaan jireen warshado wax laga soo saaro oo aad xasuusataan inay gabdhaha Soomaaliyeed dhihi jireen aroos geli mayna haddii aan nalo kaga soo iibin ciidanka asluubta Soomaaliyeed. waxaan markaa aaminsanahay in weli maantay maadaama la dayactiray xaruntii ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee lagu yaqaanay inay ahayd hoggaankooda, maadaama dib loo yagleelay maantay halkana aan joogno taliyihii horena ay joogaan, ciidankii iyo cid walbana ay joogaan, waxaa muuqata horumar iyo diilo. 6 bilood ka hor meeshani waxay ahayd meel lagu kala tagay, maanta waa aragtaan siday u taalo. Zeynab Maxamed Aadan, Somali Cable, xarunta taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed.